anigu waxaan ka soo jeedaa Hargeysa Hargeysaan ku dhashay Hargeysaan ku koray Hargeysaan wax ku bartay aragtida ah midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Soomaaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood soo ugu dambeeyayba ku dhawaad ilaa 19 laga bilaabo aragti dadna qabaan dadka qaarkiina ay qabaan haddii si adeeli weydo maxaa si kala oo ayuu abwaankii lahaa oo waacayna maxaa lagu dayi karaa oo kale war 30 sanadood miyaan meeshii u taagnaanayna waa marar madoon dunidu hal dal bay aqoonsan tahay halka dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku soconno oo haday tahay waxbarasho dibadeed takaliya lagu tagi karaa ay ka tahay marka in dalkii waa la wada yahay hadii la wada jirayna lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo qofka aragtida qabaana uu ogolaado qofka aragtida ka soo horjeeda qaba ee ka duwan in uu dood furo oo xiwaar furo oo yiraahdo walaalayaalow haduu taagan yahay tani in dhiqi mayso kumana sii socon karno 30 sanaan marayna maxaa xal ah hadaad adigu qabto maya waa kala tageynaa walaalkaana qabo maya waa wada jireynaa waa in la furo xiwaar iyo dood si maxaa lagu sii wada jireeyaa waa inaan abuurin un falsafo ama rajo ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa ta ay ku iman kartaa in biyo laga soo saarana waxa weeye kaliya in wada hadal dhab ah la wada galo la darder galiyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ta isagoo ka duulaya madaxweyne Farmaajo waxa ka warqabteen in uu soo saaray gudida ama commissionka dab u heshiisiinta iyo wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland gudidaasi in ay shaqadeeda qabsato gogolna la dhigo beesha caalamka iyo cid kasta oo la danaynayo iyo madal kasta oo dhexdhexaad ah oo ay walaalaheen ku qancayaan kuna niyadsan yihiin la isugu tago waa halka aan rabno in ay ka soo baxdo tub ama road map wada hadaladu qaataan oo lagu heshiiyo oo aakhirkii wixii marxaati duniduna ka wada tahay labada dhinacna ku wada hadleen labada madaxweynena ay isaga yimaadeen madaxweyne Farmaajo markii labada gudi ay soo jeedintooda iyo taladooda iyo maxsuulka wixii lagu wada hadlay ay soo bandhigaan la yiraahdo taas aynu ku gabagabeynaa oo loo qaadaya afti mahaabad ogoshahay iyo midnimo mise waxaad leedahay maya waxaan u baahanahay marka qof waliba ra'yigiisa waa u xor sidaasa uu dhigaya aqliga saliimkii anagu waxaan leenahay walaalayaalow miiska wada hadalada aynu isugu nimaadno yeynaan ummadda iyo daayirta soo koraysa oo iyaguna mustaqbalkooda in ay ka taliyaan xaq u leh maanta shacabweynaha Soomaaliyeed 75% ka yar waa dhalinyaradaasi waxay rabtaa in ay masiirkooda ka taliso uma baahna in ay badaha ku dhamaadaan uma baahna in Liibiya uu magafa kaga ganacsado xaaladda ay ku sugan yihiin aynu aragno uma baahna in xabsiyada kale shaqo la'aan iyo fursad la'aan Soomaali meel kasta inuu joogno ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ay ku idlaadaan waxay u baahan yihiin in laga taliyo xalkoodu muxuu yahay